walaalkeen farxaan halkaan la jooga maanta oo rabaa inaan wareysto. farxaan kusoo dhawow show. waa fiican walaalkii Yaasiin waa dhowahay maanta dee horta channelkan Kentucky New Americans Media wuxuu soo deynayaa barnaamijyo aad u badan oo ku saabsan mental healthiga walaalkeen baan igu soo dhaweeyay caawa stuudiyaha oo uga hadli doonaa xanuunka dhimirka oo communitygeena haysta Soomaalida qaasatan ayaan ka hadli doonaa. Yaasiin haye farxaan kusoo dhawow showga. waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aal aad muhiim ah. su-aashaas waxa waaye maadaama aan carabka ku dhufatay carabowday, xanuunka dhimirka muxuu yahay? dadka Soomaalida aan aqoon walaal u faahfaaha. horta xanuunka dhimirka wuxuu la mid yahay Yaasiinow xanuunada kale sida u naqaano malaria, typhoidka. waa xanuun imaada oo baxa waaye oon la daaweyn karo oona daaweyn loo qaadan karo ama siwaayo badan lagu bixin karaa jiro. waana xanuunada hadda aadka ugu badan wadanka Mareykanka oo aad pandemic ugu hayo, dhibaato badan ku hayo, adduunka dhan ku hayo hadda. macnihii dadka soo galeetiga soo affect garaya dadka qurbaha joogo horta aad u affect garaya saan ku sheegay. xanuunkan sidiisa waa xanuun dhimirka ku dhaca, maskaxda ku dhaco, ma la arko sida xanuunada kale. sidoo kale busbuska iyo xasuusta waxaas la arkaya mugtahay, laakiin xanuunkan lama arko. waa xanuun maskaxda ah siyaabo badan baan uu ku yimaadaa. dadka hadda qurbaha soo galootiga ah oo Mareykanka yimaada ama Yurubta yimaada wuxuu ku dhacaa iyagoo is ogeyn. waxaa keeni kara marka waxay yimaadeen wadan cusub, waxay yimaaday weather cusub, dad cusub, schedule bedelan, qorax dhacaysa 9 o'clock, yacni orda lagu jiraa, luqadii fahmi laadahay, aqoontii ma lihid, dadkii baa kasoo fogaatay. waxyaabahaas dhan way keenaan mental health. marka waxaad leedahay maamooyinka Soomaalida ee aqoon ee laga yaabo in iyaga ay affect garaysa ama ciyaalkooda ay affect garaysa ama gabar dhashay ama wiil u dhalay ama qof qaraabo ah, waxaa leedahay xitaa jawi bedelka uu keenaa dhimirka xanuunkeeda. yes wuu keenaa. hadda muddo 5 sano ah waxaan aad advocacy u sameyn jiray. aan la shaqeynay magaalada Louisville qaybta caafimaadka dowladda hoose. waxaan kala shaqeynay xanuunka dhimirka dhanka dadka Afrikaanka ah. waxaan ku sameynay baaritaan badan sideen ugu sheegi karnaa. marka waxaa noo soo baxday horta inay fahmaan horta muxuu yahay xanuunkan, because xanuunkan Soomaalida waa taboo, ma ka hadalna. Afrikaanka dhan waa ma aaminsana qofka dharka turto aan naqaana waa inuu naqaana ila dharka turtaa, laakiin dharka xirna waa lanta. macnihii kelmadda taboo waxa waaye waxa u yaqaanaa wax ceeb ah aan laga hadal oo wax laga hadalhaa, yacni waxna quseeyo ma aha. laakiin se anaka maxaa u naqaanaa qofka inuu waalin yahay waa inuu qofka dharka turtaa. markaasna waa stage ugu dambeyso. macnaha qisiiran ku sheegayaa dad badan oo waxaa arkay la inkiray mental healthigooda in la caawiyo lala hadlo ilaa ay gaaraan meesha ugu dambeyso, ama ay qof hataa dilaan ama naftooda ay gooyaan ama dadka dhibaato u geystaan. markaasaa Soomaalida ay sugtaa. laakiin ka hor waa inaan baranaa sida looga hortagi karo, because wuxuu ku dhici karaa adigu ku dhici karaa, anigu ku dhici karaa, walaalka ku dhici karaa. marka dadka wadankan u dhashay waa la baraa, wayna aaminsan yihiin, wayna ka warhayaan sida loo daaweyn way yaqaanaan. marka taas waa iyaga dhibka badan iyaga soo gaaro ka daran kana soo gaaro. waxaan rabaa inaan ku weydiiyo farxaan, maadaama aa carabowday aa ka hadashay in dad badan laga warhayn oo warkooda lahayn oo aan lala hadalba oo waalidkii ama dadkii qaraabada ahayn inay la hadlinba oo qofkaanay leeyihiin xabadkan jinuu qabaa, xabadkan waa xawaasaan waa jugjugu. macnihii dadkaasoo kale maxaa xalkooda noqon karaa, see loo wajihi karaa? dadka horta sideedaba Soomaalida ceebna kuma ah, badankood ma fahansana because lama barin. anaka sanadihii ugu dambeeyay xoogga waxaan saarnay dadka inaan fahansiino horta xanuunka dhimirka ah inuu jiro. horta marka aaminto inuu jiro maxaa keenana marka ogaanaysaa. hadda sanadkii hore waxaa dhacday Ohio, nin wadaad ah oo sheekh ah ayuu intuu ku dhacay xanuunkan ayuu intuu tagay dabaq iska soo tuuray. waxay ka dhacday Ohio, Columbus. markii culimada aan wareystay waxay dhaheen nin wadaad u ahaa. culimadu ku dhacaa qofka sheekha taa ugu dhici karaa, laakiinse waa in qofkii laga warhayo uu isagiina iska warhayo oo lacay. marka waxaa waaye sideedaba xanuunkan wuu yimaada wuu baxaa. waa inaad just dhakhtar iyo salaada waxyaabo badan baa lagu daaweyn karaa. salaada lagu daaweyn karaa. dhakhtar waa u baahan tahay qasab waaye. dhakhtar waxaa jira loogu talagalo psychiatrist laha
waxaa jiro dhakhtarin la yidhahdo therapist oo waxaan psychology bartay oo dadka ka keeni kara waxaas xanuunkaas. soomaali ahaan reer Kentucky ha weliba sayb ahaan khaasatan reer Louisville reluvel ha aduu waxaa u tahay gudoomiyaha Soomaalida tahay ee reer Louisville Sax. waxaa ii sheegtaa maxaa u qabataan dadka Soomaalida maxaa u qabataan ama dadka soo galeetiga Soomaalidu wax badan oo qabanaa Yaasin waxyaabahan u qabana waxaa ka mid ah in advocacy u sameyno yani in xuquuqdooda u raadino dhanka xanuunka maskaxda xanuunka dhimirka. Xanuunka dhimirka anaka waa horay dadkeena lama dowladda hoose ee caafimaadka ah ma siin jirin resource waxa la yiraaho ee dadka looga hortago. Dadkan waa la keeno un waa lagu daadiyo dhulkii shaqaraha sidaa la yiri lama weydiiyo caafimaadkooda maskaxda lama weydiiyo dhibka haysta. fiiri qofka hadduu waddan cusub yimaado waa trauma waa xanuun. hadduu dagaal buu soo maray dadkiisa la soo dilay dhibkaas qofka wuxuu u baahan in laga daweeyo kabacdi ayuu naftiisa wax qabsan karaa qofka. laakiin qofkii wala daweynaya shaqo loo dirayaa iskuul loo dirayaa biil bixi la leeyahay waa waxyaabahaas oo kale inaan kala hadlo dadkeenan dhib baa ka imaanay taasna waa mid ha dadka raba in la caawiyo Ha. xaqiiqa la soo xiriiraya waxay naga soo xiriiri karaan numberkan meesha ku qoran ama waxay imaan karaan xafiiska. Numberkan hoosta ku qoranna waxaa iska leh Maryan waa qof ha u xilsaaran gabar Soomaali oo muslim ah oo ku takhasustay xanuunka maskaxda waa licensed social worker. dadka waxay la shaqeysaa Mareykanka dadka qof walba isbitaalka waxay ka shaqeysaa mental health-ga laakiin waqti waxay u sameysay dadka Soomaalida waqti gaar ah waqti gaar u sameysay numberkaas u sameysay inay gaar telefoon gaar u wadataa inay Soomaalida ka soo wacaan in ay resource rabaan ay siiso ilmaha ha ahaadaan qof weyn ha ahaadaan dad waaweyn jiro aan la shaqeynaa jiro ilmaha jiro aan la shaqeyno oo aan ka warhayno case workerkooda laga warhayo daawooyinkooda laga warhayo xaaladooda iskuulka because qofka markuu ku dhaco xanuunka dhimirka ah wuxuu u baahan yahay caawimaado badan u baahan yahay. okay su-aashada ugu dambeysa aan rabo inaan ku weydiiyo waxaa waaye dadka marka ay rabaan in dhakhtar ilmahooda geeyaan ama ehladooda ay geeyaan sidee sameynaan tallaabooyinkee la qaadaa tallaabooyinka la qaado waxaa horta kow aniga waxaan dhahnaa dhakhtarka cunigaas primary care-ka in loo sheego. dhakhtarka wuxuu u sameynayaa referral wax la yiraahdo wuxuu u dirayaa specialistiga xanuunka maskaxda. qofkaas marka loo diro assessment lagu sameynaya waxaa loo dirayaa isbitaal kale waxaa ka mid ah isbitaal la yiraahdo Seven Counties Cornerstone iyo University of Louisville saddexda ugu muhiimsan waa saddexdaas waa iyo Seven Counties afartaas agency waa agencyada ugu waaweyn oo assessment u leeyihiin caruurta dadka waaweyn waa marka waxay la tacaalaan dadkaas dadka xanuunka hataa waxaa jira isbitaal la yiraahdo Peace Hospital oo aan aad xiriir oo la leenahay oo 24 hour shaqeeya qofka hadduu xanuunkaas laga helo waa geen kartaa waa la wici qofka way qaabilayaan qofka waa la qaabili dhakhtar baa loo dhiibi waa la wareysanayaa. dhibkan haysta waxay tahay Yaasino hadduu qof xanuunka ku dhaco maamooyinkeena iyo habayaasheena gurigeena ku haystaan rabaan ka cabsanayaan dhakhtarka. waxaa aad aan u maqlay oo soo noqnoqda aad u soo noqnoqda qof xanuunka dhimirka qaba oo leeyahay jin u qaba maxaa arrinkaas aan malaynaysaa in lagu xalin karaa waxaa lagu xalin karaa quraanka horta qofka in la saaro waa fiican tahay quraanka ma la diidi karo waa daawo laakiin also ilaahay wuxuu sameeyey dhakhtarin oo ku takhasusay qofka waxaa laga yaabaa bas inuu u baahan yahay in la seexiyo qofka hadduu seexan waayo 24 saacadood wuu ku dhufanaa so qofkaas wuxuu u baahan yahay daawooyin maskaxda loo dejiyo badan dhakhtarinta waxay sameeyaan waxyaabo badan sameeyaan daada qofka la siiyaa suuq u seexdo oo maskaxda u degto. marka in quraanka la saaro oo masaajidka la geeyo dhakhtarkana laga iloobin. su-aasha kale waa ogaanaan ku dhahay su-aashii u dambeysay waa su-aasha kale aan rabo inaan ku weydiiyo waxaa waaye dad badan oo Soomaali ah oo waxaa jiro maamada ama museyga dadka xaafadda macnihii u ahba leaderka maamada ama museyga ama maamada ama aabihii ama hooyadii ay labadaba mid uu maaragtay qabo oo museyga diidan yahay in dadka iyo qaraabadii iyo ehladii inay ogaadaan qofkaas oo kale maxaa leedahay maxaa see loo wajihi karaa see loola hadli karaa dadkaas oo kale ha horta dhibaatooyinkan haysta ka mid tahay qofka guriga mas-uulka ka ah in uu waxaa horta naftarkiisa uu cilmigaas barto. haddoo kale fiiri 24 bishaan waxaan qabanay anagoo la shaqeynayno hay'adda caafimaadka ah galaas loogu talagalay Soomaalida ah waalidiinta ah inay yimaadaan centerka yimaadaan qadan meesha ay ku qadeynayaan in qadadan waxaa loo sameeyey in la baro xanuunka maskaxda ah sida looga wajahi karo qofku waa inuu cilmigii soo bartaa
marka cilmigii aad baratid waxaad ogaanaysaa indhaha kuu furmeeyo markii la dhahay yani aqoon la-aan waa indha la-aan waxaa ka mid ah aqoon la-aanta madax xanuunka dhimirka waa indha la-aan hadda kale Kenya markaa fiirisid dadka banaanka joogo dadka walwaalan dad badan oo waalan arkaysaa haddaa fahansan tahay waa xanuunka laakiin haddaa xanuunka fahansanin dad ma kala garanaysid marka dadka dadkaas inay wax bartaan ee aqbalaan ee ogaadaan inuu xanuunkan horta jiro taasaa number one ah aad iyo aad waxaan rabay inaan ku weydiiyo farxaan dad badan oo dhalinyaro oo waalidkeen ay ka warhayaan ama waalidkii ay ka warhayaan aad jirto oo maamada wiilkii ay dhashay kasoo qaado kale tusaale ahaan oo ay ku xalinayaan aad jirto ama wiilashii ay cabayaan drugs ama xashiishadoo kale ama waxaasoo kale ay jirto oo wiilkii isla hadlaayo maamooyinkaasoo kale maxaa ay xal u arkaan wiilkooduna laga yaabaa inay ka baqanayaan in la xiro waxaa laga yaabaa wiilkooda inay isleeyihin la xirin oo ay isleeyihin ninkaan guriga maaragtay ha ku hay ama guriga ha iska joogo maadaama uu ninkaan mukhaadaraad iyo xas isticmaalayo maxaa dadkaasoo ku leedahay tala u haysaan dadkaasoo kale horta yaasiin waa su-aal aada u fiican waxaa isweydiinaynaa dhallinyaradeena qurbaha joogto maxay u noqdeen badankood drug addict ha ahaado kiniin ha ahaado khamri ha ahaato xashiisha ha ahaato waxaa isweydiinaynaa the issuega waxaa keenayo ilmaha markuu darooga isticmaalayo waxaa weydiisaa daroogadan ama kiniin ha ahaado ama khamri ha ahaado waxaa weydiinaysaa hal su-aal why you using it because lacag baa kasoo bixinaysaa wuu dhib badan yahay ma shaqaysan kartid sababta drugs loo isticmaalo waxaa waaye hadda koor wiil waxaa jira su-aal ku sheegay qiso wiil baa booliis raadinaya iisoo cararay wuxuu yidhi booliis baa xirirow markaasaa waxaan ku dhahay booliis hayaan ku dhiiba booliiska intii banaanka ka qaban lahaayeen ee dhib ku geysan lahayen haddaan ku geenaya wuxuu u yiri mataqaanaa intii la xirin xashiishina caba waa horta ko u dhahay markaasaan ku dhahay waay wuxuu ugu yiri xashiish haddaa cabo ma dareemaayo waxaan xanuun ma dareemaayo yani in la xiraayo hataa ma dareemaayo yiri marka taas maxay ku sheegaysaa daroogada waxaa lagu qariyaa xanuun oo gudaha ah waa traumatize qofka marka wuxuu u baahan yahay xanuunkaas uu daroogada u qaadanayo in la ogaado oo ilmaha la burinin ilmaha haddii daroogada isticmaalaan cadow ma ah in lasoo dhaweysto la caawiyo la weydiiyo waay dhakhtar loo geeyo mareykankana waa maraan xaalkan waa la maraa laakiin xaalkan waa laga bixi karaa xaalka drogska ma aha qofka inuu u dhamaato qofku kasoo bixi karaa bad waxay u baahan tahay wey lagu caawiyaa jiro weyga haddaa garanaynin waa isku rafaadaysaa halkuna kuma jiro aan umaleynaya in ilmaha soomaaliya lagu celiyo hal maaha umaleynaya xal ma aha waxaa lii sheegay hadda wiil waxaa jiray oo aan garanay oo hay kalaabtay saasaa lagu celiyay soomaaliya oo kale daroogo isticmaali jiray markuu laabto qofuu dilay dhibka hore sii geystay wiilkaas waxaa laga yaaba inuu u baahnaa un in la kaxeeyo oo meeshan riyaabka la geeyo alcohol buu waa issuga alcoholka meeting baa la tagaa daaweyn baa la qaataa system baa jir la maro meeting dadkaan aqoon maxaa meeting waxaa la macnaha waa alcoholka dadka isticmaalo waxaa jiro dad macalimiin u ah dadkan macalimiintu waa dad iyagana taa soo maray systemka soo maray so there is always solutionkana waxaa markaa fiirsida waa un in lagu yiraahdo bal waxaa isku dhibtaa ilaahay isku dhib ilaahay ka baq waxaan iska dhaaf because alcoholka waxba ka raadinaya qof kasta wuxuu ka raadinaya wuxuu ku qarnaya marka dhibkaas soo saaray dhibka lagu sheegayaa daawo lagu siinaya marka meetingka mareykanka madaxweynayaal baa soo maray hataa qaarkood aad iyo aad u mahadsantahay farxaan barnaamijkan maanta waxyaabo badan oo aniga laftayga aan aqoon ay kordhisay insha allah biidnillah barnaamijka halkaan aan ku khatimeynaa muhimku waxa waaye maamooyinka iyo odayaasha iyo wixii xanuunka dhimirka qabo inay farxaan iyo dhakhaatiirta ku takhasusa waxaan ay la xiriiraan oo ay la hadlaan wax laga xishoodo ama laga khajilo ama laga maaragtay faano maaha waxaan uu dhacaa dadku ku dhacaa marka insha allah biidnillah intaas arkeenay mar labaad farxaan aad iyo aad u mahadsan tahay barnaamij aad iyo aad u muhiima waaye insha allah biidnillah ilaa kulanka dambe aad iyo aad aan lii salaamayna assalaamu calaykum وعليكم السلام waxaa kaloo u sheegaynaa qofkii u baahan haddaa qabtid qof magaalada jooga oo dhimirka xanuunka ku aragta ilmaha ha ahaado waalka ha ahaado please numberkan hoosta ku qoran soo wac Marian Ahmed wac iyadaa waxay ku sheegaysaa processka iyadaa ballan ku qabanayso maxaa nasiib baa leedihiin waagaan dadkii anaka meeshaan soo koreynay ma jiri jirin servicekan qof noo haya
hadda waxaa haystaa qof Soomaali afka ku hadlayo oo step hataa ku caawinayo dhakhtarkii la shaqeynaysaa case worker la shaqeynaysaa daawooyinka lagu siiyay kaa fiirinaysaa waxaa haystaa qof oo shaqadiisa kaliya tahay inuu community-ga dhanka xanuunka dhimirka ka caawiso waana fursad ee community-da kala haysanin waa aad iyo aad mahadsantahay Farxaan mar kale until next time aad iyo aad ni salaamina kulanti wacan wanaagsan السلام عليكم. وعليكم السلام. channel كان هالي لو subscribe يا like هالدو هالنا share قري. عادي.